السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa idin leeyahay soo dhawaasho wacan anigoo aan aad iyo aad idin salaamayo walaalaha ku xiran page-ka for Somali Speakers Community iyo YouTube channel-kayga. haddaba maxaan usoo galay right now waxaan rabaa buugan inaan wax idinkaga sheego oo ah magaciisu fikrado xigmadaysan xigashooyin iyo dhiirigelin by Safiya Faarax Maxamed. buugan haddaba waxa uu ku quseeyaa ma ahan mahmaahyadii hore oo aan soo kooba ka hadlay, waa mahmaahyo cusub maaragtay aan kaga hadlay af Soomaali ahaan. markiis hore buug hore aan ka qoray oo English ahaan ku qoran, buugaas magaciisu uu yahay waa kan. haddaba buugan oo magaciisa la yiraahdo Wisdom Thoughts, Quotes and Affirmation by Safiya Faarax Maxamed. asagoo English waaye laakiin kan waxaan u bedelay asagoo af Soomaali ah. waan doonay dad badan akhrintoodii markay akhriyaan oo maskaxdooda isbedelo. walaalo badan ayaa contact ila soo sameeyay ma sha Allah. buuga markay faa'iidadiisa arkeen oo ay maaragtay ku dhaqmeen, dareemay inay qof kale bedelan ay noqdeen. haddaba aan ku akhriyo waxa buuga maaragtay magaciisa uu yahay iyo waxa uu ka hadlayo. buugani wuxuu ku leeyahay miyaanan ku daalin daawashada wararka inaga buuxiya maqsinka cilmiga iyo khibradaha wanaagsan. taasi waa su'aal, miyay ka buuxiyaan ma dareentaa? su-aasha labaad, miyaysan inaga dhaawicin dunida maantay ku wajihideeda waxa inoo wanaagsan? sida arkaysan dunida maanta waxaa ka buuxa negative akhbaar. again, ma doonaysaa inaad masaxdo fikradaha qaldan ee bannaanka nooga yimaada? waa run, fikradaha bannaanka nooga yimaada way badan yihiin. waxaa nooga yimaada iyadoo hadal ahaan nagu soo galaan, iyadoo dhagaysiga nagu soo galaan, iyadoo aragtiya ayaan indhaheena ku dhaca. ma doonaysaa su-aasha kale in beerta gudaha maskaxda ay kuu abuurto midho anfacaya adiga iyo bulshada, midhahaasoo anfici doona adiga iyo bulshada. 30 cisho aad ku nadiifinayso una diyaar garow insha Allah in ay kuu soo dhalan doonaan fikrado waxtar leh. aadan noqonayn qofkii hore, isbedel kugu dhici doono. isbedelka waxa raadinaysid ma sha Allah, waxa anigana raadinaya alxamdulillah. waxaana hubaal ah in aadan u xiisi doonin tii hore safar wacan. buuga markaa akhrisid waxyaalo badan ayaa ka fahmi doontaa. waxaa insha Allah nooga doonayaa dhinac oo maaragtay oon ka doortay. actually topic waxaa jiro aan dhinac ahaan ka doortay oo ah isdhiirigelin ku saabsan xagga dhagaysiga qur'aanka. isdhiirigelin ku saabsan inta aadan dhagaysan qur'aanka. maxaan ka wadaa taas? halkan ku qoran yahay, anaa kuu sheega waxaan ka wado. xanuunada anxiety-ga, xanuunada cabsida, xanuunada depression, especially mental illness, schizophrenia, waxay isu dhow yihiin xanuunada isha lagu sheego, xanuunada lagu dhaho qofka maxaa ku hayaa sixir. symptomka bodily everything was similar. dadkii marka maxaa ku dhacay in ay markii qur'aanka dhageystaan maskaxdoodii association ay u samaysa subconscious mind, bilaabaan inay ooyaan, bilaabaan inay maaragtay qur'aankii ay dhibsadaan aayad markii lagu akhriyo. waxaasoo dhan because of the subconscious mind ayay gelisa. uma diidani qur'aanka, subxaan allah. qur'aanka waa cilaaj, waa daawo. qur'aanka laysku akhriyo, la dhagaysto waa the best daawo oona u qalmin maanta medical kastoo isu yimaada aysan u dhawaan karin. waayo waxa keliya kugu filan habeenkii adigoo jiifa, laga yaabo inaad qarow la soo toostay oo aad wax ka naxday ama wax ka baqday adigoo hurdo, ama subconscious-kaagii uu riyo kugu furo. ama waxaa laga yaabaa in wixii maantay ka baqday oo cabsiya, ama laga yaabo hadal ama wax meel kaa soo gaaray oo aad dhibsatay, laga yaabo inaysan aadan u bixin, laga yaabo filin aad fiirsatay, laga yaabo ilmo isdagaalaya ina aragtay, laga yaabo TV-ga laba oday oo isku qeylinayo oo politician ina aragtay. wixii maskaxdaadii soo galay ayaa ku seexatay. subconscious mind-kaagana ma kala jecla, wax walba ayuu kuu soo arursaa. sida dhirtaa gadaal iga sarreyso dhinacayga ah, sidaasoo kale ayuu maaragtay u habanayaa, maskaxdaada ayuu soo galayaa. kadib maxaa dhaca markuu soo galo? hurdada ayuu kaa qasaa, riya kugu dhacda. riyooyinka iyadoo mid wanaagsan iyo mid maaragtay qarow ay jiraan. aniga qarowga ayaan ka hadlaya. markuu soo galo maxay tahay waxa ugu horeeya akhrisid? anigu way igu dhacdaa. waxa ugu horeeya aan la soo boodo acuudu billahi min ashaytaani rajiim, bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo culus ama markaad culays dareentid oo maxaa kula oradaa oo xabadkii xitaa ku cuslaado oo aad ciriiri dareentid, qul huwa allahu axad allahu samad. waxaa ku xijisa qul acuudu birabbi lfalaq, waxaa ku xijisa qul acuudu birabbi nnaas, aayatul kursi. way ku dejisaa, waa ku qaboobaysaa, waa ku nimcaysanaysaa, sax? haddaba dadka waxaan ka hadlayaa oo qabo symptomka anxiety-ga, depression, schizophrenia, oo mental illness-kaas qabo oo rabo attention badan in la caawiyo oo dadkaas ay proper dawo helaan, ayaa sometimes, most of the time aan dhihi karo
dadka waddankeena joogo ay badanaa ku qaldaan inuu qofkaas uu la sixray la jinni ku dhacay maaragtay il ay hayso qofkii qur'aankii la saaro anxiety-gana cabsi waxay qabtaa paniga qofka markii wax yar uu ka cabsado ama dad badan ama qofuu soo hor fadhiisan jiro uu soo hor fadhiisto qur'aanka akhriyo waxaa laga yaabaa qofka inuu dhidid bilaabo iyo maxaa dhici doona su-aal isweydiiyo su-aashii cabsida ahayd ee maskaxda u gasho qofkii cabsi ay ku abuurto cabsida markii ku abuurto gees waxa dhaca qofka wuxuu bilaabaa symptomka inuu sixran yahay inuu il qabo waxa hayana oo dhibka hayana waa anxiety depression schizophrenia waxaa dhici karto inay tahay waxyaalo kale bipolar xanuuno badan oo mental illnesses oo la daaweyn karo oo simple ah inuu qofka la xaniban yahay marka qur'aankii qofkaas muxuu concept ka qaaday qur'aanka markaa dhageyso waa oyna qur'aanka markaa dhageyso waa dhibtoona aniga waxaa ii yimaadeen dad badan maasha allah oo therapy-ga ahaan igu imaaday service-kayga oo NLP coach aan u sameeyey waxaasoo dhan the best thing aan ku caawiyey wax ka mid halkaasaan ku qoray so in uu qofka image samaysto uu qur'aanka ku dareemo naxariistiisa iyo deganaanta qur'aanka mudma'ina ayuu naga dhigaa ma aha mid naga cabsiyo oo na khalkhal geliya qur'aanka waa mid na dejiya oo nagu abuura nasteexo iyo naxariis cabsidana naga biyo ogowna dadka reactionka sameeya ma ahan in ayaga iska sameeyaan iska yeelaan waa reactionka anxiety-ga iyo maaragtay schizophrenia ayaa la mid ah isha iyo sixirka sixir wuu jiraa ilna way jirtaa labadaba waxaan rabaa inaad si fiican u kala hustaan way jiraan laakiin inta badan waa la isku qaldaa waxaa la isku qaldaa qofka diagnosis-ga sameynayo oo cilaajka haysto kale qofka u yimaada waxa laga yaabaa inuusan lahayn maaragtay wax cilmi uusan u lahayn waxyaalaha mental illness cilmi dhanba uma lahaba qof baa u yimi uu soo fariisiiyey wuxuu hore kaga bilaabay inuu dhaho qur'aanku akhriyo qofkii waxa arka dhidideeyay cabsaday qofkaana wuxuuba qabaaba let's say social anxiety uu qabaa social anxiety waxa dhibaya qofka dadka banaanka inuu arko markuu qof arka inuu jareeyo qof maaragtay necbaa qof jeclaa adduunka isku mid maaha qof yaqaan qof aqoon inuu qofka baqo qofkaas markuu u tagay uu dhahay maaragtay qofkiisii ama waxa laga yaabaa in familku u geeyo waxa xanuunsan yahay qofkii wuxuu bilaabaa inuu sheekin gareeyo inuu dhibaatoodo actually aniga way soo martay yes I did shake Kenya markii la geeyay oo qur'aan la soo saaray ma sha Allah oo aniga xataa by will aan u tagay waayo markii qofka xanuunsan waxa la yiraahdaa qofka buka boqol baa u talisa so waan fariistay waxaasoo dhan qofka worry iyo anxious badan emotion badan oo korkiisa ka buuxa oo asagoo baaldi buuxa oo culays badan ayuu meel tagay meeshii markuu tago oo niyadda wuxuu gashtay sixira qabtaa ilaa qabtaa qur'aan lagu bilaabo that's it qur'aankii concept kale laga aaminay laakiin hadda alxamdulillah I don't go qof qur'aan igu akhriya aniga akhrista kitaabka inta soo qaata oo aan ku raaxaysto waayo qur'aanka waa raaxo waa dawo waa mudma'ina qalbigu qaboojiya wuu ku daweeyaa nuur ayuu ku siiyaa wuxuu ku siiyaa maaragtay way of life ayuu ku siiyaa waxaasoo dhan laakiin dadka aanan fahansanayn mental illness oo mental health aan fahansanayn oo ay u yimaadaan inta meelo furto ay dadka kale u yimaadaan oo qur'aan ku bilaabo dadkaas yacni ayagana ma lahan ay cilmi umay laha wax walba wuxuu leeyahay adduunka wax walboo la barto maanta hadda aan kusoo maaragtay aan idin iraahdo accountana ah qof oo ku fiican businesska oo xagga maaragtay xisaabta oo kale waan ku qaldanahay ma baran accountant ma tegin jaamacad ma aanan kasoo baran haddaan ku iraahdo qof waxaan ahay doctor medical ahay waan ku qaldanahay haddaan ku iraahdo nurse ahay yani qofkan sam bandage-ka u sameey aan kula soo galo anoo inta wax yar kasoo akhriyo meelo iima noqonayso laakiin maxaa sax qof walbo karaam meesha uu fadhiyo khibradda uu leeyahay inuu bulshada kusoo kordhiyo waa number 1 maasha Allah dadka qur'aanka saaro dadka u baahan oo maaragtay il qabo sixir qabo waxa jira dad aanan qabinba mental illness oo il iyo sixir kaliya haya dadkaasoo kale markii lagu akhriyo maasha Allah tabarakallah way reystaan ishi way ka baxdaa qur'aankii oo maaragtay haddii sixir ay ahayd way ka baxdaa laakiin waxaan ka hadlayaa dadka ayagoon laga fiirsan oo aanan loo geenin dhakhtar mental health ku saabsan oo maaragtay even xitaa medics haddii loo geeyo asagaa psychiatric u diri kara qofkaas asoona helin meeshaas la geeyo oo hadhowdii concept uu ka qabo qur'aanka marka uu akhrinayo so taas aan ugu talagal insha Allah haddaba ila dhageyso buugan waana heli kartaa waxa kaleesa online-ka maxaan ku qoray isdhiirigelin maaragtay ku saabsan inta aadan dhageysan qur'aanka isdhiirigelintuna way wanaagsan tahay dadka markii ay qur'aanka dhageysanayaan saa idin soo sheegay
and especially dadka shaydaanka ama cabsida ama shaydaanka ayaa cabsiya ama u sheegay in il ama sixir qabaan waayo maskaxda subconscious u sheegeen ereyada ay dhihi lahayn insha Allah aan ka bilaabi doonaa qof kasto haddaa samaysid oo waraaq ku qoratid dhaxdidna that's the best masha Allah ku dhawaaqday erayadan marka waa kuwan waxaan maaragtay dadkan ku yiraahdo waa inay quraan sida quraanka inuu dhaho qofka waxaan ahay qof degan waxaan ahay qof dareemaya nabad waxaan ahay qof dareemaya nabad laba mar ku soo celinaysa dhageysiga quraanka qalbiga ayuu ii dejiyaa dhageysiga quraanka qalbiga ayuu ii dejiyaa waan ku raaxaystaa dhageysiga quraanka waan ku raaxaystaa quraanka dhageysiga quraanka dhageysiga quraanka waxaan ku dareemaa fudayd culayska dhan way iga tagaa dhageysiga quraanka wuxuu maaragtay dhageysiga quraanka waxaan ku dareemaa fudayd waan jeclahay dhageysiga quraanka waan jeclahay dhageysiga quraanka marka dadka saas oo kale markaan u diray inay ku celceliyaan dhagahayga waa ay ku raaxaystaan dhageysiga quraanka hadana dhagahaygu waa ay ku raaxaystaan meesha cabsida gelin lahayd dhagahaygu waa ay ku raaxaystaan dhageysiga quraanka waan jeclahay akhrinta quraanka waayo adiga waa na akhrisid quraanka kaliya inaad dhageysatid maahan you have to read ina akhrisid rasuulka sallallahu alayhi wasallam iqra lagu dhahay asoo maaragtay markii ugu horeysay iqra maxaa akhriyaa yani waxna ma arkin iqra waa lagu soo celiyay maxaa dhacay because akhrintu waxay dawo u tahay gudaha ayay kaamil ka dhigtaa soo akhrintu way wanaagsan tahay as much as dhageysigu uu wanaagsan yahay waan jeclahay akhrinta quraanka qofka saddex mar inuu ku soo celiyo waan jeclahay quraanka waan jeclahay akhrinta quraanka inuu haddana yiraahdo maskaxdayda iyo jidkaygu waa ay ku raaxaystaan quraanka maskaxdayda iyo jidkayga waa ay ku raaxaystaan quraanka waayo qofka markii lagu qaldo oo la dhaho meel qalad la geeyo asagoo u baahan attention waxa laga yaabaa inuu dawo u baahan yahay schizophrenia u yahay qofkaas inuu qabo personality disorder inuu dawo u baahan yahay oo uu u baahan yahay therapy uusan helin loo geeyo meel cilaaja markii la geeyo qofka maxaa ku dhaca inuu qalqal noqdo wayna soo mareen waa arkay dad badan oo saasa quraanka markii hor loo qaado dhow aan quraanka markii la dheereeyo ma dhageysto iga dami waxa soo dhan maskaxda subconscious-ka ayaa qaadata hadhowdina cabsi ay qofka ku abuurtaa as I said lama kala yaqaano way isu egyihiin sixir iyo il is exist way jiraan laakiin astaantii ayaa isku eg astaantan waxa only kala saari kara qof soo bartay labadaba cilaajna sameeya psychiatricna ah ama mental health u leh khibrad kadib qofka u yimaado uu ku dhaho waxaad tagtaa meel maaragtay oo mental health qof u tag oo dhakhtar ah oo dawo ku qoro oo evaluate kugu sameeyo assessment ka qaado dhinacan kale qofka markuu ka dareemo inuu leeyahay cilaajka xagiisana dhanka cilaajka u gudbiyo ama qofku ka dareemo inuu yahay u dhaho marka hore ma u tagta mental health ma tagta dhakhtar yes waa tagay dhakhtarkii yani assessment waa laga qaaday waxba ma qabo dan u imo quraanka maaragtay isku daway waa wax fiican laakiin waxaan ka hadlayo dadka dhagoodii uu dhaawacay oo dhibaatooyin ku soo gaaray soo anigu soo gabagabeyn doona insha Allah mid u dambaysa aan dhageysiga quraanku waxaan ku dareemaa nabadgelyo buuxda meesha aan ka dareemi lahaa aayada halkaas iga toogatay saana dareemo qofka dhulku ku dhaco reaction sameeyo reaction kaas waxa kaga sii fiican qofka marka intuusan dhageysan quraanka akhriyo an ma sha Allah I did work markii sameeyeen waxa kale oo aan maaragtay aan wax yar idin kaga taaban doona insha Allah which is the book inaad heshaan ka fiican oo adiga kaliya akhrisid anyway so waxa idin leeyahay in meantime ogow quraanka waa dawo hudan wa shifaa mudma'inna waa quraanka Allah subhanahu wa ta'ala waa dawo for every xanuun either mental health either medical maaragtay xanuun ah everything uu yahay dawo oo number one ah oo the priority number one even dhakhtarka daawada ku soo qor adoo qaadanaysid quraanka waa dawo isku daway adigoo isku akhrinaya waxaan ku leeyahay haddii aad isku aragtid symptomka waana ka soo hadli doona video gaar ayaan ka sameyn doona symptomyada schizophrenia iyo maaragtay bipolar personality disorder depression social anxiety which is a similar isha ayay u egtahay social anxiety similar isha xanuunkeeda qofku markuu isha qabo iyo sixir uu qabo waa social anxiety qofka inuu noqdo maaragtay inuu xataa waxyaalo istusiyo waayo wuxuu ka cabsanayo dhan maskaxdiisa tusaysa next time ka hadli doona assalamu alaykum